عليكم واتما هوينيدا adduunka ugu dheer hayga fogaan oo muuqaalkan dhamayso isagaan kugu faahfaahin doona ilaa dhamaadka waa gabadha ugu dheer adduunka albaabka caadiga ah iyadoo ku gaaban yahay oo dib bay ku qabtaa gaarigana warkiisa wadaa oo markii ay dhinac istaagto wuxuu la noqonayaa quraanjo oo kale magaceedu waa Rumaysa waxay jidhaa 25 sano waxay ku nooshahay dalka Turkiga dhererkeedu waxa lagu sheegay inuu gaarayo 2 mitir iyo 15 sentimitir markii ay istaagto waxay dherer la eg tahay 2 qof oo la isku daray dhererkooda sidoo kale gacanta ugu weyn adduunka ayay leedahay oo haddii ay wajiga ka saadho meel aad neef ka qaadatid heli maysid shay walba oo gurigeeda yaal sida dharkeeda kabaheeda sariirteeda si khaas ah ayaa loogu sameeyay oo wax la eg ba laga helimayo suuqa waxay haysataa 5 shahaado oo ah World Guinness Record oo ah buugga lagu qoro dadka dibada gaarka ah uu eebasiyay Rumaysa markii ay dhalatay waxa ku dhacay xanuunka loo yaqaan Weaver's syndrome oo ah cudur naadir ah xanuunkaas oo sababaya in lafaha si degdeg ah u koraan markii ay 7 sano jir ahayd waxay ka dheereed aabaheed iyo hooyadeed waa qofkii ugu horeeyay ee Turki ah oo xanuunkan lagu arko adduunka oo dhan 50 qof ayaa la nool cudurkan lagu magacaabo Weaver's syndrome murqaha ayuuna ka dhigaa kuwa aad u tabar daran wuxuuna sababay qalooc ku yimaada laf dhabarkeeda mana istagnaanka dhow wax ka badan 30 daqiiqo oo waxay ku socotaa kursiga curyaanka ma awoodo inay iskool aado balse guriga ayaa wax lagu baraa gawaarida caadiga ma raaci karto sida awgeed waxa loo sameeyay gaariyada magaceeda ku qoran yahay oo khaas ah waligeedna diyaarad ma raacin saaloomaba ogole iyadoo hadlaysa ayaa waxay tiri ka duwanaanshaha dadka kale iguma sababto niyad jab balse waxaan leeyahay hadaf iyo rajo aan rabo inaan ka dhabeeyo wali waan yarahay oo waxaan jiraa 25 sano adduunkaana ii baahan iyadoo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri dhererkaygu wuxuu keenay inaan caan noqdo waana ku faraxsanahay midaas aad baad u mahadsantahay fadlan ku soo dhawow maskax kobciye siina share galeen muuqaalkan subscribe masaar salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh